بسم الله الرحمن الرحيم maanta magaalada muqdisho waxaa si rasmi ah uga furmay shirkii golaha wada tashiga qaranka Soomaaliyeed oo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda shirkan oo ay ka wada qayb galayaan madaxweynayaasha dawlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwaleyn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladdan waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wada tashiga qaran dadka u qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay kala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wada tashiga qarankan waxaa ka go'an inay shilkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala aragti duwan yahay marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto kusoo dhawaada som tv Soomaaliya fadlan taageeradiinu waxay noo tahay dhiirigelin subscribe saar kanaalka share garay like saar videoga mahadsanid